ciidamada maraykanka ee jooga dalka Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay baraha bulshada ku baahiyay muuqaalo video oo la toobay sanadii 2018 oo ay ku xaqiijinayaan inay jiraan quruumo kale oo iyagu samaawaadyo kale iyo waliba caalamyo kale ka yimid oo inta badan ay ku arkeen dhulka buuraleyda iyo togaga aan cid deganeyn ee Soomaaliya. ciidamada maraykanka ayaa baahiyay muuqaal bishii February 2018 ay duubeen ciidamo gaar ah oo Maraykan ah oo iyagu xilliga ku sugnaa degmada Waajid ee gobolada Bay iyo Boqol kuna la dagaalamayay waxay ku sheegeen argagixisada. ciidamadan ayaa si kadis ula kulmay digsiyada ku duula xawaaraha iftiinka oo inta badan la aqoon quruumaha isticmaala meesha ay ka yimaadeen. ciidamada gaarka ee Maraykanka ayaa isku dayay in badan inay xiriiro toos ah iyo kuwa dadbanba ay la sameeyaan oo kontaktiya la sameeyaan digsiyada xawaaraha ku orda oo aan la aqoon quruumaha wata iyagoo isticmaalaya fariimaha iclaanka ee iyagu cilmiyeysan ee ishaarada. waxaana la sheegay inay si weyn isugu dayeen inay ugu soo dhawaadaan digsiyadan, laakiin ilaa iyo hadda wax natiijo laga gaarin oo digsiyadani marka loo soo dhawaado ayagu joog aad u dheer ku duulayaan oo xawaaraha iftiinka ah. waxaana la sheegay in digsiyadan ay inta badan kor duulaan magaalooyinka iyo deegaano fara badan oo caalamka aynu ku noolnahay kamid ah. culimada sayniskuna aysan jawaab ilaa imika aysan u herin, waxayna ku fasiraan oo keliya inay xadaarado iyo ilbaxnimo inaga sarreysa ay isticmaalayaan digsiyadan iyadoo xawaaraha ku duula. ciidamada Maraykanka ayaa iyagu baahiyay muuqaal kale oo iyagu muujinaya ciidamada Maraykanka ee ku sugan buuraleyda bari ee Soomaaliya oo iyagu markaas ku jiray roondo ay ku raadinayeen kooxaha argagixisada oo si kadis ay u dulmartay mid kamid ah digsiyada xawaaraha dheer ku orda oo la sheegay inay kala fardhisay ama kala ceyrisay ciidamadii Maraykanka oo argagax ku riday. waxayna si weyn la sheegay in digsiyadan ay u hoganayaan buuraleyda gobolada bari ee Soomaaliya. digsiyadan ayaa inta badan la aaminsan yahay inay ku badan yihiin dhulka iyadoo aynan cid deganeyn oo loo maleynayo inay ka buuxaan macdan fara badan oo kala gedisan dhinaca Soomaaliya oo quruumahan ay inta badan iyagu ayaad u ilaashadaan. digsiyadan xawaaraha dheer ayaysan xabadu karin gantaanahana aan la heli karin maadaama ay iyagu xawaaraha iftiinka ku ordayaan. marmarka qaarna waxay bixinayaan iftiin aad u weyn oo iyagu ashqaraar geliya aadamaha. waxayna hadda u muuqataa in hay'adaha NSA, NASA iyo waliba Pentagonku ay xiise gaar ah u qabaan dhulka dihin ee Soomaaliya iyo quruumaha digsiyada dheereeya wata oo la sheegay inay saldhigteen. waxa kale oo iyadana la sheegay oo ay faafiyeen ciidamada Maraykanku muuqaal ay ka duubeen digsiyadan oo iyagu badda Soomaaliya iftiin weyn ka bixinaya oo ciidamada Maraykanku ay darsayaan. muuqaaladan waxaa duubay section 51 oo u qaabilsan xiriirka baraha bulshada.